annagu dadka mudaharaadaya ee soconaya ee salmiga u soconaya waanu dhex qaadayna haddaan ciidamadanay weliba siba milayska iyo milatarigu waanu soo gelaynaa magaalada markii hore qolada milaysku baa magaalada isugu imanayseen qolada milatarigu waanu soo gelaynaa talabadan ku diinaya waxa weeye siduu sheegay taliyuhu wuxuu yiri xanu adeegsanaa ciidan militariga soo gelaynaa maxaa dalka shacibka u sababa inaad militari u adeegsatay isagoo booliska ma soo karay guddida nabadgelyada gobolka Togdheer oo kula warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa taageerayaasha mucaaradka ee gobolka Togdheer ee Bariitolo ku banaan bixi doona magaalada Burco ugu baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada sidoo kale waxay sheegeen in hadii ay soo dhaafaan goobta loo asteeyay inay banaanbaxa ku dhigtaan ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan ciidamada nabadgelyada gobolka Togdheer ugu horeyn baalkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Hiiro waxana ay dhahdeen sida tan insha Allah taala waxaan rajaynayaa sidii qiimaha lahayd reer Togdheer reer Burco aynu isu kaashan jirnay nabadgelyadeena aynu ga shaqeyn jirnay cidda ay khalkhalka wada iyo cidda dan gaar leh aynu isaga qaban jirnay inaan fajignaano oo runtii aan ku fajignaano cidda danta gaar leh oo ka faa'iideysanaysa ama soo dhex maraysa mudaharaadka axsaabta qaranka maadaama aad qaranka aad ka mid tihiin wadankana aad leedihiin wadankana aad doonaysaan inaad maxay tahay maalmaha kamid aad xukuntaan doonistiina iyo rabitaankiina waa inay noqdaan wanaag iyo nabadgelyo iyo sida wixii dastuurku idin jideeyay insha Allah taala aqbali mayno cidda danaha gaar leh iyo cidda maxay hayteenay waxyaalo kale runtii uga faa'iideysanaysa ma aqbalayno insha Allah taala ciidamada qalabka sidana diyaar bay u yihiin in ciddii khalkhal wada iyo ciddii dara gaar leh iyo tuugada ku soo dhex dhoomanaysa iyo cidda hawlaha kala wada intaba waanu la soconaa insha Allah taala madaxdii axsaabta qaranka heer gobol iyagana waanu ballanay nabadgelyada waanu ka wada shaqeynaynaa ciddii iyaga dheeraad ku ah way soo sheegayaan tallaabana laga qaadayaa geesta kale maraan gudoomiyaha gobolka Togdheer wax ka weydiinay sababta ay taageerayaasha mucaaradka ee gobolka Togdheer ugu adeegsanayaan militariga iyadoo shaqada ammaanka gobolka Togdheer ay sugayaan ciidamada booliska talabadan ku diinaya waxa weeye siduu sheegay taliyuhu wuxuu yiri xanu adeegsanaa ciidan militariga soo gelaynaa maxaa dalka shacibka u sababa inaad militari u adeegsatay isagoo booliska ma soo karay ciidamada qaranka horta waxay u taagan yihiin nabadgelyada qarankan inay ilaaliyaan tan gudaha iyo tan dibadda labadaba muhiimadeedu ma aha ciidan military iyo ciidan bilays baa lagu soo deynayaa oo dadka leenayaan ama dadka caburinayaan laakiin waxay sugayaan nabadgelyadooda iyo inay dareenkooda muujiyaan si xor oo xalaal ah iyo dastuurka u jeedeeyay taas weeyaan laakiin ma aha ujeed kale iyo ciidanku inay maxay tahay caburin soo galayaan iyaga ayay sugayaan nabadgelyadooda iyo cid kale inay ku soo dhex dhoomato oo dana gaar leh ayay insha Allah taala iyagu ay sugayaan sidoo kale xarun baa loo asteeyay dadkuna waa looga yahay xaafaday ka imanayaan meel kala duwan bay ka imanayaan ciddii soo dhex maraysa de magaalada maraysa ee maxay tahay xaafadooda ka imanaysa iyagu ku socda meesha de la caburin maayo la joojin maayo laakiin meesha goobta loogu talagalay inay isugu yimaadaan oo ay dareenkooda ku muujiyaan waa goobta cudwey caawa halkan waxaan isugu nimi inaanu wacyi gelino bulshada reer Burco iyo gaar ahaan taageerayaasha xisbiyada mucaaradka berito dhammaan qaranka oo dhan wuxuu adeegayaa xisbiyada isbahaysiga mucaaradka kuwaasoo si xor u dhiiban doona aragtidooda berri xilka u weyn wuxuu saaran yahay xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda berri waxaynu muujinaynaa astaan kamida waxyaabaha aynu dastuurka u samaysanay markaynu xorownayna aragti xor aynu dhiibano aragtida xorka aynu dhiibanayna hadday naga noqoto aragti xooga waxa ay dhaawac ku keenaysaa qarannimada aynu ku faarayno iyo sida aad ku doonaysaan in hoggaanka aad kula wareegtaan ama damac idinkaga jiro xisbiyadu waxay leeyihiin xasaanad qaran oo dawladnimada astaanteedii ka mid yihiin dastuurkay ku jiraan in xisbiyadu tartamaan doorashaduna de xoog laguma qabsanay doorasha lagu qabsan samirkeeda iyo xirfadaheeda iyo xeeladaheeda leen taas haddii aad booliska aragtaan oo xarumaha dawladda aragtaan oo astaamaha dawladda aragtaan ma aha waxay xukuumaddu leedahay ama madaxweynuhu leeyahay waa wax madaxweynaha ka dambeynaya idinka iyo cid kastoo kalena ka dambeynaya
askarigu wuu joogayaa gaariga dowladdu wuu joogayaa xafiiska dowladdu way joogaysaa astaanta qaranku way joogaysaa haddii taa laydinka warwarana dee idinkayna suqaanin ku noqonaysaa guud ahaan waxaad doonaysaan marka hadda idin garanmayso marka hanjabaad maaha cagajugleyn maaha xuquuqa idinku leedihiin annaguna leedihiin baanu gudanaynaa mudaharaadka boqolkiiba 50 bay dowladdu leedahay nabadda inay ilaaliso idinka ilaaliso waxa idin dhibay idinka ilaalisay meesha u joogtaa dhinaca kale halkaasi waxaa ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer taliyaha ciidanka militariga ee qaybta 12aad iyo taliyaha qaybta asluubta ee gobolka Togdheer iyagoo sheegay in la ilaaliyo nabadgelyada dadweynaha iyo xisbiyada waxaanu u sheegaynaa inay amniga ilaaliyaan marka hore dhammaan dadweynaha reer Burco hadday tahay xisbiya hadday tahay dadka caadiga ah inay ilaaliyaan nabadgelyada annagu waxaan u xir saaranahay haddaanu nahay gudidii nabadgelyada maamulka gobolka iyo ciidankii bilayska inaanu amniga ilaalino marka waxaan u sheegaynaa maamulka maartay xisbiyada inayna wax fawdiina ka dhicin hadday timaado sidii loogu talagalay wax ka gadisan talaabada sharciga aanu ka qaadi doonaa cid kasta oo ku soo dhex dhuumaneysana ma ogolaanayno iyagana waxaanu u sheegaynaa inay ka shaqeeyaan sidii amarka wasaaradda arrimaha guduhu ku bixisay mas'uuliyadeeda inay qaadaan dadkooda soo banaabaxaya goobtaasina waxay noqonaysaa meel iyagu ay ku ururiyaan ama xisbigooda ha noqoto ama meel xarun kale ha noqoto goobtaana waxay tegayaan halka loo asteeyay ka hadlayaan marka ay tagaan ee ay ka hadlaan si urursanaana ay uga soo baxayaan mana la rabo inay magaalada dhex yaacaan ciddii isku dayda inay magaalada dhex yaacdo ciidanka bilayska iyo ciidamada la socda talaabay ka qaadayaan dadweynahana waxaanu u sheegaynaa gobolka Togdheer inay amnigooga ilaashadaan waxaanu ka codsanaynaa oo u sheegaynaa dadweynaha reer Burco inay nabadgelyada ilaaliyaan waxaanu ka codsanaynaa kuwa soo baxaya ee goobaha tagaya loo cayimay in nabadgelyada ilaaliyaan inay si wanaagsan oo dhowrsoon oo wadaniyadi ku jirto oo ilaalini ku jirto oo dhulkoodii ay joogaan oo magaaladoodii iyo gobolkoodii joogaan inay nabadgelyada ilaaliyaan halka laga soo dhaqaaqay qolada xisbiyadu ay ku urursanayaan dadka ilaa iyo goobta la tagay inta u dhaxaysa in si wanaagsan nabadgelyo loo maro ciidamadu way joogayaan ciidamada bilayska iyo ciidamada qaranka iyo ciidamada kale ee magaranaysa dawladda ee gobolka Degariba way joogayaan annagu dadka mudaharaadaya ee soconaya ee salmiga u soconaya waanu dhex qaadayna hadan ciidamadanay waliba siiba bilayska iyo militarigu waanu soo galaynaa magaalada markii hore qolada bilaysku baa magaalada isugu imaneysay qolada militarigu waanu soo galaynaa ballan waxaanu ku qaadaynaa qofkaanu ku qabanna asagoo hanti qof leeyahay burburinaya ama wax shiidaya ama calan aan ka Soomaaliland lahayn sita xabsiga militariga aan ku tuuro oo qabanno qolada bilayska waa loo soo dacwooday anaga cidina loo soo dacwoon mayso nabadgelyada hala ilaaliyo waxaan uga digaynaa qolada xisbiyada dadkiina inay la hadashaan goobta ka soo dhaqaaqaysan ku wacyi gelisaan u sheegtaan in nabadgelyada la ilaaliyo marka soo noqotaan ee goobta laga hadlayo xafiiska cud ku yaalo ka timaadaan in si wanaagsan oo nabadgelyo magaalada lagu soo galo waa baaq baanu diraynaa baaqaasi waxa weeye halka heshiiska ay ku heshiiyaan asxaabta qaranka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu dhaqmo oo aan la dhaafin oo sidii loo ballamay ay hawshu u socoto oo nabadgelyada la sugo Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ee Home Cable TV Burco